hawshii aynu ku heshiinay waxaan leeyahay waa sideedii waa imtixaan waa maraynaa qofna uga gaban mayno reerna uga gaban mayno qoysna uga gaban mayno waa maraynaa waxaan rabnaa qofkii qof dulan ku dila oo dulmi ku dila waa ismaqlaynaa in la soo qabto oo gacanta loo geliyo walis dambigii in gacanta loo geliyo insha Allah daalayaa sayr bana ka yeelan ama hadileen ama hafiyeen ama magaca ka qaateen waa hawl iyaga u taalo weey marka horeysa waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sakariye jannadiisa ka waraabiyo isaga awood leh waxa weeye waxaan qiyaasaynaa waan helaynaa runtii waa ku qiiraysanahay dulmiga iyo gardarrada iyo gafka lagu dilay laakiin Ilaahay agtiisa ayuu ka helayaa janno Ilaahay macna waxa weeye ha u furo jannada albaabadeeda Ilaahay ha u furo subhanahu wa ta'ala Ilaahay ha u furan leena intuu ka tagay oo ehel iyo caruur iyo dad iyo ehel iyo aabba iyo qaraabo ahaan samir iyo iimaan ka khayr badan Ilaahay ha siiyo Ilaahay ugu bedelo wax ka khayr badan Ilaahay ugu bedelo wax ka khayr badan waad ogtihiin macna waxa weeye nabiga Alayhi salaam qofkii inta wax gaaraan yiraahda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaa wax ka khayr badan ugu bedel Ilaahay inuu awoodo wax ka khayr badan ugu bedelo Ilaahay waxba lama awoodisa sakariyana ma dhaafeen halka waa imtixaan min Allah oo Ilaahay hagiisa ka timid weeye waxa weeye waad ogtihiin sharka iyo khayrka labadaba waa la isku imtixaamaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa isku imtixaan culimada waa maqlaysaan aayadda quraanka ahayd marka waxa weeye waa imtixaankaas sida aynu u qaadan lahayn aynu u qaadano waxa weeye insha Allah hadaa la yiraahdo waxaan leeyahay marka ugu horeysa ducada Allah wa aqbalo ducada Allah wa aqbalo ducada Allah wa aqbalo inta ka bacdi waxaan leenahay hadaynu nahay reer madow khaas ahaan reerkii hadda laga sharqamiyay oo ugu horeeyay asagu inta shiray saxiyada isla qaatay horana jifooyin kamid ah ay diinta islaamka u qaateen dad iyo dunya Ilaahay qaweeyo dad iyo dunya Ilaahay qaweeyo dad iyo dunya Ilaahay qaweeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u kabo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay tabanayaan ha u kabo subhanahu wa ta'ala Ilaahay jannada ka waraabiyo Ilaahay dadka ha u hagaajiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hantida iyo aqliga iyo maskaxda Ilaahay u hagaajiyo sidii hoggaan u yihiin hoggaan jira Allah ka dhigo sidii hoggaan u yihiin hoggaan jira Allah ka dhigo inta ka bacdi waxaan leeyahay hawshii aynu ku heshiinay waxaan leeyahay waa sideedii waa imtixaan waa maraynaa qofna uga gaban mayno reerna uga gaban mayno qoysna uga gaban mayno waa maraynaa waxaan rabnaa qofkii qof dulan ku dila oo dulmi ku dila waa ismaqlaynaa in la soo qabto oo gacanta loo geliyo walis dambigii in gacanta loo geliyo insha Allah daalayaa sayr bana ka yeelan ama hadileen ama hafiyeen ama magaca ka qaateen waa hawl iyaga u taalo weey wixii ayagu ay rabaan aan kula shaqeyno dawladdan faraynaa shacabkan faraynaa anagu ka isimahaan waa naga go'an tahay waxaan ku darayaa inta beesha nabarku gaaray intii la yiri waxaad yeelaysaan Ilaahay agtiisa aad ka helaysaan iscashada wixii dhacay qaladaha ku daranina Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa aada Ilaahay xaqiisa aad ka helaysaan waxaan leeyahay beeshii qaladu ka dhacay gacanta ku dhigto gacan ku dhiglay gacanta ku dhigto hana keento marka insha Allah hadalaya waxaan leenahay arintaas waxaan ogeysiinaynaa dariska waxaan ogeysiinaynaa maamulada gacanta naga jira waxaan kitaabka Ilaahay baan qaadanay asagaana ku dhaqmaynaa nala qaataan leen inaguna aan qaadano oo aan ka dhabayno wax kasta ayna ka dhinteen 10 haday naga dhimato 20 haday naga dhimato hadii wallahi baan ku dhaartay maanta 2 iyo 3 hadii loo toogto ciidan ba amaan helaysa cid walba amaan bay helaysa qof walba meeshuu rabo seexanaya qof walba meeshuu seexanaysa rabo seexanaya marka insha Allah hadaa la yahay arintaas aynu ka dhabayno cid kasta aynu ka dhimatay hawsha aynu ka dhimaano dagaalada waa ku dhamaanaa annagoo wax hal ka gaarahayn oo wax hal laga gaarahayn oo 20 ku dilo 100 ku dilo 200 ku dilo hal kama gaaro magti waa arkaysaa 500 600 maraysaa hal lagu waa kitaabka Ilaahay yaa hal ku helayna asagaan qaadano kitaabka Ilaahay baan qaadano dhamaan waxa leena sabir iyo iimaan Allah in ka siiyo